xasuusanayaa wuxuu isku dayayaa inuu helo saaxiibo wax ka qaato isagu buug ma leh laakiin wuxuu isku dayayaa inuu buugga nin qof saaxiibkii uu ka qaatay arday baa jira ardayda kale isagu niyad jabiya oo aan diyaar u ahayn inuu cid saaxiib ka dhigto wax ka qaato nuut aan u diyaarsanayn qabyo ka yahay meel uu uga hagaaga aan lahayn arday waxaa jiray imka maalintuu fonfor soo galay anytime anywhere meeshuu doonaa taga meeshuu doonana ha joogay diyaar waa inuu wax akhristo iban wax kale iska daayay marka uu iskuulka ku soo socdo wuxuu jecel yahay inuu buugaagta intuu soo kala furo uu dhaxda ku soo yara eega intuu iskuulka soo gaadhay ardayda qaar baa maalintay fonfor soo galaan waxay dhaqan ka dhigtaan inay samaystaan wax loo yaqaano study group koox ardaya oo si koox ahaaneed wax u wada baranaya waxaa laga yaabaa form 3 group kuma jirin keligii buu ahaa ardayga ama isagaa iskooda wax akhrisanaya laakiin markuu form 4 soo galay wuxuu samaysanayaa 5 inan habluhu 5 hablood laga yaabo team bay noqonayaan isku urursado oo doonaya inay si group wax wada dhigtaan arday baa jira maalintuu form 4 soo galay wuxuu geed gaaban iyo geed dheer baa inuu aad wax u bartay laakiin dhibtu waxay aad wax u baranaya laakiin aad wax u baahnayeen de markaa haddaad aad wax u barataan aad wax macnaheedu ma aha baas sama noqonaysa wala dareemi kartaa inaad ku aanka sheegay ka mid tahay inaad ka mid tahay beriya ka badan adigoo mobilku helaya 10 maadi waxa akhrisan lahay de kuma oranaya mobil ha isticmaal mobilka isticmaal laakiin wax manfac loo faa'iido loo isticmaal don't depend on your friends qof saaxiibadii ku tirsan arday kastoo waxaad isku daydaa inaanan noqon qof ku tiirsan saaxiibadii sababtoo way isbedbedeli karaan saaxiibadaada waa inaad isku daydaa inaad noqoto qof madax bannaan oo keligii istaagi kara don't try a new book at the last minute qodobkaasi arday badan buu khalkhaliya adeero teeramkii dambe imika gallaya ha isku dayin inaad buugaagtaad akhrisan jirtay qaar aan ahayn inaad akhrisato don't till tomorrow what you can do today imtixaankii maynu gaadhinay inta imtixaanka laga gaadhayo shaqaad maanta qaban karta dib ha u dhiganin haddaad tiraa ka waran saaxiibkay habeenkii buu akhristaa habeenkii buu akhrisanaya ha ku mashquulin inuu saaxiibkaas siduu isagu u bartaa aad ku barataa adigu hab gaar kuwa oo aad u fahmaysa samaysanay sidaa markii imtixaanka u arko uu qabto odhanaya this series I can allari imtixaanku waa jileece wallaahi waad ka shaqayn karta isaga naftiisa isla hadlayay eega de weerku kalsooni ka gaadhay ardaygaas way arday kala jiro loo yaqaan the first finish student kaas ardayda qaarna uu ka walwaliyay oo ka naxaan qaarna kalsooni bay ka sii qaadaan ardayga ma aha macnaheedu wixii uu ka wada shaqeeyay ma aha macnaheedu ardayga kaalin koowaad galaya ma aha macnaheedu ardayga kalsooni badan isku qabta waxa laga yaabaa inuu dhaqan u leeyahay inuu wuxuu garanayo markuu ka shaqeeyo inuu kala isan karto way arday baa jira la yiraahdo desperate student ardayda qaar baa way niyad jabeen imika waqti kaamu tagin baan ku leeyahay haddaad is leedahay teeramkii hore dhan wax baran lahayd ama aad dadaali lahayd baa kaa maqan ardayda waxaa qabsada markay imtixaanku jiraan wax loo yaqaano time pressure oo time pressure kan sheegaya